dowladda Itoobiya ayaa mar kale waxa ay sheegtay in haddii Soomaaliya ay joojin weyso hadallada xanafta leh ay ka iman karto in labada dhinac gacan ka hadal u dhexmaro. Itoobiya ayaa Soomaaliya ugu hanjabtay in tallaabo ay ka qaadi doonto haddii aanay joojin hadallada iyada dhibaatada ku ah sida ay sheegtay. War ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa lagu beeniyay eedeynta dowladda Soomaaliya ee ah in hub ay ku soo daabuleyso gudaha Soomaaliya. Taliyaha militariga Itoobiya Barhanu Jula ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeynta ka timid wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ee ah in dowladda Itoobiya ay hub sharci darro soo gelisay gudaha Soomaaliya. Burhanu ayaa sheegay in uusan jirin wax hub sharci darro oo Soomaaliya ay gudaha u soo geliyeen, balse waxa uu ka digay haddii xaaladdu sidaan ay ku sii socoto in ay qaban doonaan ama ay qaadan doonaan go'aan ka dhana mid hadda Soomaaliya ay gaartay sida uu sheegay. Taliyaha militariga Itoobiya Burhanu Jula ayaa carabka ku adkeeyay haddii aan la joojin hadallada xanafta leh ay qaadi doonaan tallaabo intaa ka badan sida uu sheegay, balse ma uusan caddayn tallaabada dowladda dalka Itoobiya ay qaadi doonto haddii dowladda Soomaaliya aanay joojin hadallada ku aadan heshiiskii dowladda Itoobiya ee la gashay Somaliland. Haddii hadallada dhibaatada ku ah dowladda Itoobiya sidoo kale kicinta iyo abaabulka sokeeye ee ka socda gudaha Soomaaliya aanay joojin dowladda dhexe waxay noqon doontaa inaan u jawaabno, ayuu taliyaha yiri. Hadalkan waxa uu muuqanayaa mid uu ugu jawaabayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo dalka marka uu ku soo laabtay kadib sheegay in dowladda Itoobiya hub sharci darro gudaha Soomaaliya ay soo gelinayso. Itoobiya ayaa muddooyinkii dambe waxa ay ku mashquulsaneed sidii gudaha Soomaaliya abaabul iyo galaangal ay ugu yeelan lahayd marka la eego maamulada dalka, iyadoo laba jeer oo kala duwan hub soo gelisay qaar ka mid ah gobollada dalka. Tani waxay u muuqanaysaa in dowladda Itoobiya ay ku difaacayso ama ay rabto in indhaha carra ay kaga shubto beesha caalamka iyo sidoo kale dunida inteeda kale, isla markaana u muujiso in dowladda Soomaaliya ay ka caawinayso dhinaca amniga, balse iyadoo aanay diyaar u ahayn in gudaha Soomaaliya hub ay soo geliso. Itoobiya ayaa la ogyahay in iyadu ay mashquul xoogan ugu jirto sidii ay u kala qaybin lahayd dhulka Soomaalida iyo dadka intaba, waana sababta keentay in qaybo ka mid ah gudaha dalka ay hadda horay u soo gasho, isla markaana beelaha qaarkood ay ka dhaadhicinayso in iyagu ay hoos tagaan. Wixii ka dambeeyay heshiiskii January sanadkan 2024 koodeedii oo ay la galeen Somaliland, wixii ka dambeeyay waxa sii xoogeysanayay khilaafka siyaasadeed ee iyagu u dhaxeeya Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliya. Madaxweyne Xasan iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dalka ayaa iyagu meel cad ka istaagay in Itoobiya wax wada hadal aan lala galeyn ilaa ay ka laabato heshiis beenaadkii ay la gashay maamulka Somaliland.